cuntooyinka dib u dhisa derbiga ilmagaleenka. Ma ogtahay in gabar caafimaad qabto ay haddana suuragal ay tahay inay dhali weyso sababo la xiriira in ilmagaleenkoodii uu daciifay? Haa, runtu waxay tahay in derbiga gudaha ee ilmagaleenka ee loo yaqaano endometrium haddii uu ka yaraado 8 milimitir ama uu daciifo in aysan dhici karin in gabadhu uur qaado. Haddii xataa ay uur qaado in ay dhaci doonto in ilmuhu dilan iyo waxyaabahaas uu ku samaysmo. Waa maxay shaqada rasmiga ah ee derbigan marka laga hadlayo uur qaadista? derbigan wuxuu u shaqeeyaa sidii sariir jilicsan. Wuxuu u baahan yahay marka koowaad dhiig, wuxuu u baahan yahay oksijiin, wuxuu marka uu labadaas helo kadib dhacaya in unugyadii derbiga ay adkaadaan, kadibna ay fudaato in uur gabadhu ay qaado. Sidoo kale ay fudaato in bacrimin ay samaysanto. Sidoo kale inay fudaato in ilmihii uusan dilan ku dhicin. Marka faa'iidadaas ayuu marka hore derbiga ku qabanayaa waa haddii derbigaaga uu adag yahay. Marka su'aal ayaa imaanayso, waxay leedahay su'aashaas: ma jiraan calaamado lagu garan karo in derbiga ilmagaleenku uu daciifay? Waa su'aal muhiim ah. Sidee horta ku ogaanayaa derbiga ilmagaleenkaygu inuu daciif yahay? Su'aashan waa muhiim. Inta badan haddii aad marka hore isku aragto dhiigga caadada oo aad u yar, macnaha dhiigga caadadii aa heli jirtay waa uu yaryahay. Yaraanshahaas marka laba meel oo ka imaanaa in tiradii dhiigga ka imaan jirta ay yaraato iyo maalmo kooban inuu socdo. Tusaale 5 bari 6 bari oo ku soo jirta caadada 2 bari 3 bari ka go'aysa. Haddii calaamadaas ku aragto waa qasab waxaa daciifay ama yaraaday derbigii ilmagaleenka. Ma jiraan ayaa lagu dhahay isbedelo cuntooyin oo dhici kara marka derbigan uu yaraado weynayn kara. Sidoo kale marka uu derbigan jilcana adkeyn kara. Isbedeladaas ma jiraan cuntooyin noocaasa? Haa, cuntooyinkaas waa jiraan. Waxa ugu horeeya, cuntada ugu horeysa waxaa loo yaqaanaa waa kalluunka. Kalluunka waxaa ku jira maado loo yaqaano omega 3 fatty acid. Omega 3 fatty acid, omega dufan ayay ka kooban tahay. Waxay inta badan samaysaa in caabuqa ilmagaleenka ay la dagaalanto. Sidoo kale inay ka ilaaliso barar ilmagaleenka derbigiis, inay bararka ka ilaaliso. Labadaas marka ay dhacdo waxaa imaanaya derbigii wuu adkaanaya, cabirkiisina waa uu weynaanaya. Marka labada hadday dhacdo derbigana weynaado, cabirkiisana weynaado, adkaadana, ilmagaleenkii, uur qaadistii, bacrimintii, dilankii, waxyaabahaas oo dhan labada hore way fudaanayaan. Uur qaadistii, dilankiina waad ka raysanaysaa. Marka waxaa jira marka su'aal oo imaanaysa oo ah, dad waxaa jiro oo inta badan aanan joogin meel kalluun laga helo. Dadkaas maxay samayn karaan? Dadkaas waxay samayn karaan wax kale maaha. Cunto lagu bedeli karo ma jirtaa kalluunka? Haa, waa lowska. Lowska ayaad isticmaalaysaa sababtoo lowska inta badan muhiim ayuu u yahay unugyada ilmagaleenka, derbiga ilmagaleenka. Sidee baa marka lowsku u caawinayaa gabadha derbigeeda ilmagaleenka? Sidee buu u adkeeyaa? Lowsku waxaa ku jirta arginine, maado la dhaho. Maadadan waxay dhiigga ku qasbaysaa in si xoogan uu u gaaro xubnaha taranka, gaar ahaan ilmagaleenka. Taas marka waxay keenaysaa in derbigii dhuubnaa ama yaraa inuu weynaado, sidoo kalena derbigii adkaado. Labada markay dhacdana uur qaadistii way fudaanaysaa, dilanna isma arkaysaan. Ma jiraa marka fitamiino gooni ah oo lowska ku jira oo dhaqaatiirtu ay sheegaan in derbiga ilmagaleenku uu adkeynayo, cabir ahaanna uu weyneynayo? Haa, lowska sidoo kale waxaa ku jira vitamin E ayaa ku jira. Vitamin E waxay si toos ah u weyneysaa cabirka derbiga ilmagaleenka. Weliba waxaa la dhahaa 52% derbiga ayay weyneysaa. Marka haddii aad uur qaadis raadinayso, haddii caadada qalqalkaaga jiro, haddii derbigaagii uu daciifay, haddii dilanka kugu badan yahay, waxyaabahaas oo dhan lowska muhiim ayuu ku yahay. Sababtoo ah lowska marka intaas aad samayso wax badan oo faa'iido ah ayaad ka arki doontaa. Waxaa kaloo imaanaysa su'aal kale oo ah, ma jirtaa inta badan cuntooyinka marka laga hadlayo waxyaabaha la isweydiiyo oo aysan inta badan dadku ku baraarugsaneen? Waxa ugu horeeya, sidee bay avokaadadu u beddeshaa tayada derbiga gudaha ilmagaleenka? Avokaadada waxaa ku jira laftigeeda dufan ayay ka mid tahay, waxayna caawisaa jirku inuu soo saaro hormoonka estrogen. Hormoonka estrogen marka la soo saaro, derbigii ayaa weynaanaya, nafaqadii ilmaha ay helayaan ayaa badanaysa, derbigii nafaqadii uu isaga laftigiisa heli lahaa ayaa badanaya. Marka avokaadada iyadana waa muhiim haddii aad rabto uur qaadis caafimaad qabta. Haddii aad rabto, avokaadada waa waxa ugu horeeya ee wax badan ku taraya.
ma jiraan marka sidoo kale su-aasha kaloo imaanaysa waxay tahay cunto toddobaadla ah oo inta badan derbiga ilmagaleynta dhisaysa ha way jirtaa. haddii aad doonayso ilmagaleenkaaga inuu dhismo waxaad ka fogaanaysaa kow waxyaabaha burka ka samaysan ka fogow, bariiska iyo baastada yarey. waxaad isticmaalaysaa cuntooyinka dalka, salbukada, qamadiga, soorta, waxyaabahaasoo dhan ayaa lagaa rabaa inaad isticmaasho, sababtoo ah cuntooyinkaas waxaa ku jira vitamin B complex iyo fiber. labadan maado waxay muhiim u yihiin unugyada derbiga ilmagaleenka inuu adkaado, koritaanka derbiga inuu weynaado, sidoo kalena in qalqal uusan ku imaanin wareega hormoonadaada qalqal inuusan ku imaanin ayay muhiim u tahay. su-aasha kale ee dadku inta badan ay isoo weydiinayaan waxaa ugu horeysa inta badan derbiga waa ka hadalnay, waxyaabaha uu qabanayo waa ka hadalnay. ma jiraan waxyaabaha ama dad badan waxaa jira inta badan isticmaala geeda kuleelka waxa la dhaho sida basbaaska, sanjabiisha, waxyaabahaas maxay faa'iidaha ay leeyihiin? faa'iidada ay leedahay sanjabiisha iyo xulbada iyo basbaaska, waxyaabahaas inta badan waa saaxiibada kicinta dhiigga inuu kaco, dhiig badan la gaarsiiyo xubnaha taranka, derbiga in la gaarsiiyo ayay muhiim u tahay. sanjabiishoo kale waxay ka hortagtaa caabuqa, waxay ballaarisaa xididada dhiigga, waxay keentaa oksijiin badan iyo nafaqo badan in la gaarsiiyo unugyada, gaar ahaan unugan loo yaqaano derbiyada ilmagaleenka, unugyadooda in la gaarsiiyo ayay ka qayb qaadataa. maxay tahay muhiimadda cabitaanka biyaha uu u leeyahay ilmagaleenka? tin waa sir weyn waaye. xuubka ilmagaleenka wuxuu u baahan yahay qoyaan joogto ah si uu u soo saaro dhacaano difaaca, si uu soo saaro nafaqo. biyuhuna waa gaadiidka nafaqadaas qaada. marka haddii biyo cabista kugu yar tahay ilmagaleenkaaga derbigiisa waa uu yaraanayaa, waana uu daciifayaa. intaas waa inaad meel ku qorato. mise koob oo biyaha marka ayaa laga rabaa gabadha si derbigeedu u adkaado? su-aashan aad muhiim u tahay. waxaa laga rabaa adiga 1 litir bar ilaa 2 litir inaad cabto maalinkii si derbigaadu u adkaado. sababta markaa biyo badan cabto wareega dhiigaaga ayaa fiicnaanaya, dhiigga miskaha gaaraya ayaa fiicnaanaya. inta badan derbiga waxyaabaha daciifiya waxaa kamid ah miskaha. haddii ay dhiig badan uusan gaarin waxaa imaanaysa in derbigii uu soo yaraado. haddii miskuu dhiig badan soo gaaro waxaa bilaabanaysa in derbigii uu daciifo. marka si dhiig badan loo gaarsiiyo miskaha waa inaad samayso derbigii in aad biyo badan cabto, ugu yaraan 2 litir 1 litir bar maalin kasta waa inaad cabto. intaas kaliya kuma ekaaneyno, waxaan sii gelaynaa cuntooyin ma jiraan dilaayaal ah oo khatar ku ah derbiga ilmagaleenka. wixii u fiicnaa waa sheegnay, hadda waxaan ka hadlaynaa waxaa u daran cunto khatar ah oo laga fogaanayo oo derbiga ilmagaleenka jilcin karta, daciif ka dhigi karta, ilmagaleenka derbigiisa yarayn karta, ugxaanta inay bacrimin samaysa ka hortegi karta. ma jiraan. su-aasha ugu muhiimsan kow sokorta waa inaad ka fogaato haddii aad doonaysa ilmagaleenkaagu inuu adkaado derbigiisa ama uu weynaado. sokor waa inaad ka fogaato. inta badan sokorta waa khatar. cuntooyinka warshadaysan waa inaad ka fogaato. wax kastoo cunto warshadaysan ama baakadaysan waa inaad ka fogaato. inta badanna waa inaad ka fogaato cabitaanada cuntada laysaga dejiyo aashitada leh inaad ka fogaato. saddexdaasba waa in aad ka fogaato haddii aad doonayso uurqaadis caafimaad qabta. saddexdaas khatar ayay ku yihiin uurqaadistaada. marka saddexdaasba aad ka fogaato maxaad samaynaysaa? biyo cad ayaad ku bedelanaysaa, biyaha caadiga ayaad ku bedelanaysaa. ma jiraan marka jimicsiyo u gaar ah oo inta badan la dhaho ilmagaleenka ayay u fiican yihiin? socodka degdega 30 daqiiqo oo socod boobsiis ah inaad samayso waxay fidinaysaa miskahaaga. dhiig badan ayaa soo gaaraya miskahaaga. marka dhiig badan soo gaaro miskahana waxaa bilaabanaya in derbigii nafaqo badan uu helo, kadibna derbigii adkaado, cabir ahaanna derbigii uu weynaado. su-aasha ugu muhiimsan waxay tahay imise muddo ah ilaa iyo goorme ayay qaadanaysaa markaan cuntooyinkan waxaan oo dhan sameeyo, sokorta ka fogaado, cuntooyinka ii sheegta oo dhan markaan sameeyo, imise ayay qaadanaysaa natiijo dhab ah in aan helo? unugyada ilmagaleenku inta badan 30 cisho kasta ama bil kasta way isbedelaan. haddii marka aad cuntooyinka aan kuu sheegay isticmaasho, talooyinka aan kuu sheegay aad samayso, sidoo kalena aad ka fogaato waxyaabaha aan hadda kuu sheegay, 1 ilaa 3 bilood isbedel weyn ayaad ku arkaysaa. derbiga ilmagaleenkaagu waa adkaanaya, sidoo kale derbiga ilmagaleenkaagu waa uu weynaanaya. marka maxaa talo siin lahayd gabar inta badan dhowr jeer dilan ku dhacay? waa su-aal muhiim ah. inta badan gabdhaha haddii dilanku kugu bato waxaa muhiima inaad iska baarto
hormoonka progesterone. Waa hormoonka ilaaliya derbiga marka ilmuhu uu ku jiro iyo marka uusan ku jirin labadaba. Marka hormoonkan haddii cilad ka jirto in lagaa soxo ayaad u baahan tahay. Marka ma jiraan kaniiniyo ama supplements waxyaabo fitamiinaha oo aan qaadan karo si cuntada aan qaadanayo aan ugu kabo. Waa muhiim. Waxaa qaadan kartaa iron, feerada qaadan kartaa, waxaa qaadan kartaa L-arginine baa qaadan kartaa. Labadaasuba waxay dardargeliyaan dhismaha derbiga ilmagaleenka in uu adkaado. Ma jirtaa marka fariin dahari ah oo aan u reebi lahay gabar kasta oo rabta inay hooyo noqoto? Fariintan ayaan kuu reebayaa. Ilmagaleenkaagu waa beerta ilmahaagu ku koraayo. Macnaha waa guriga ugu horeeya oo ilmahaagu ku koraayo ilmagaleenka. Marka beertaasi waxay u baahan tahay waxyaabo nafaqo leh inaad siiso. Sidoo kale waxyaabaha dhibaya inaad ka ilaaliso. Ilmagaleenkaagu marka wuxuu u baahan yahay cunto sax ah, talo sax ah. Inta aan kuu sheegay ayaana kuu filnaa doonta insha Allah. Sidee baan marka uu heli karnaa ay dadka qaar leeyihiin muuqaalo sidan oo kale ah oo aqoon kororsi ah oo intaan ka sareeya? Like sar muuqaalka si saaxiibo badan u gaaro. Haddii aad nagu cusub tahana ha iloobin inaad subscribe saarto si saaxiibo badan ugu soo biraan halkan nagala socoto.